kulan waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Kalmoy Media waxaan warbixintan ku eegi doonaa war cusub oo ka soo kordhay aqoonsiga Somaliland iyo sidoo kale halka uu waqtigan maraya markaasi aqoonsiga Somaliland wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi ayaa waxa uu ka hadlay waqtigan halka uu maraya aqoonsiga iyo sidoo kale dalka ugu horeeya ee ku dhawaaqi doona aqoonsiga haddaba waa kee dalkaasi uu wasiirka carabaabay ama uu markaasi sheegay inuu noqon doono dalka ugu horeeya ee aqoonsado markaasi jiritaanka iyo madax banaanida jamhuuriyadda Somaliland sida uu markaasi hadalka u dhigay waxaan kula wadaagi doonaa dalkaasi iyo wasiirka markaasi hadalkiisa ku aadan waqtigan halka uu marayo aqoonsiga maamulka Somaliland oo doonayo inuu ka go'o Soomaaliya inteeda kale isla markaana loo aqoonsado dal madax banaan intaan guda galin ku soo bir channelkan Kalmoy Media haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay calaamada subscribe-ka noo taabo gambaleelka furo muuqaalkana like saar muuqaalkan intaad daawanayso like saar soo meel dheer oo gaaro aragtidaadana qaybta faallada ku dhiibo sida markaasi aad u aragto in Somaliland waqtigan aqoonsigeeda uu meel wanaagsan marayo Somaliland ma la aqoonsan doonaa muddooyinka soo aadan qaybta faallada ku dhiibo sidaad u aragto dalkee ayaad leedahay waxa uu noqon doonaa dalka ugu horeeya ee aqoonsado marka laga soo tago wasiirka dalka uu sheegay inuu noqon doono midka ugu horeeya ee aqoonsada waa hagaaga wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Cabdiraxmaan Aadan Bakaal oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa xilli uu markaasi uu hay'adaha amniga uu kulan markaasi la qaadanayay ayaa soo hadal qaaday arrimaha aqoonsiga Somaliland isagoo markaasi ka warbixiyay halka waqtigan ay wax marayaan iyo sidoo kale dalalka markaasi dadaalka ugu jira inay Somaliland dal madax banaan oo jira markaasi u aqoonsadaan wasiirka waxa uu sheegay markaasi xilli uu kulan la qaadanayay hay'adaha ammaanka in ay soo dhowdahay waqtigii markaasi aqoonsi buuxa la siin lahaa Somaliland wasiirka ayaa rajo wanaagsan markaasi ka muujiyay ololaha ku aadan inay markaasi helaan ictiraaf buuxa wuxuuna sheegay in maanta Somaliland ay uga dhowdahay in markaasi la aqoonsado oo dal jira oo madax banaan markaasi loo aqoonsado Soomaaliyana markaa ka go'ay waxa uu yiri wasiirka Somaliland meel fiican ay markaasi maraysaa waana markaasi waqtigii ugu dhaweyd ee Somaliland markaa la ictiraafi lahaa ayuu ku markaasi dhawaajiyay xilli uu la hadlayay markaasi saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka wuxuuna markaasi uu sheegay inay dhowdahay waqtigii Somaliland la ictiraafi lahaa meel fiican ayuu marayaa ayuu yiri ictiraafka waqtigan ayayna uga dhowdahay Somaliland in markaasi la ictiraafo sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaan markaasi rajo wanaagsan ay ka qabaan inay helaan ictiraaf buuxa waxa uu sheegay wasiirka in dalal badan ay markaasi heegan uga jiraan isla markaana ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan Somaliland iyaga oo wada dadaaladii ugu dambeeyay sidoo kale waxa uu intaasi uu ku daray in Somaliland ay tahay markaasi nabadgelyo isla markaana ay haysato nabadgelyo buuxda waxa uu markaasi sheegay in taasi la sii xoojiyo si markaasi ay u noqoto ayuu yiri in markaas Somaliland ay hesho aqoonsi buuxa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in nabadgelyada si dhab ah markaasi looga shaqeeyo xoog la saaro nabadgelyada wixii intaasi ka dambeeyna wuxuu yiri waxaanu heli doonaa aqoonsi ayuu yiri nabadgelyada ayaa ugu muhiimsan haddii nabadgelyo aysan jirin cid markaasi ku dhiiranaysa inay aqoonsato ama macaamil nala sameeyso ma jiro ayuu yiri Somaliland waxa markaasi lagu ictiraafi doonaa inay tahay markaasi dal nabad ah sidoo kalena markaasi ay ku taalo meel markaa istiraatiiji ah qorshaheena waxa uu yiri waa in nabadgelyada la adkeeyaa si markaasi nabadgelyada hadda aynu haysano markaasi u noqotaa mid aan meesha ka bixin aqoonsigeena waxa uu ku xiran yahay inaga oo ka shaqeyna horumarka nabadgelyada ayuu yiri dhanka kale waxa uu hoosta ka xariiqay inay jiraan dad markaasi cadow ku ah Somaliland oo markaa dadaal ugu jira sidii loo carqaladeyn lahaa ictiraafkooda balse ay markaasi ka guuleysan doonaan sida uu hadalka u dhigay waxa dadaal weyn markaasi loogu jira ayuu yiri sidii arinta markaasi loo carqaladeyn lahaa oo markaasi caqabad loogu noqon lahaa aqoonsiga Somaliland qof walba waxa uu markaasi maanta uu shaarka u soo bedeshay midabkana u bedeshay waa inuu carqaladeeyo ayuu yiri jiritaanka iyo sidoo kale ictiraafka markaasi soo ifaya Somaliland ay heli doonto cidna kama yeelina ayuu yiri wasiir Bakaal waxaanu intaas ku daray inay la socdaan cid kasta oo ku howlan carqaladeynta ictiraafkooda
Somaliland ayaa muddooyinkan markaasi waxa ay xooga saartay arrimaha aqoonsiga iyada oo ololaheeda markaasi gaarsiisay Washington si ay markaasi ictiraaf ugu hesho Mareykanka, waxaana markaasi toos markaasi ay ugu xiran yihiin xubno markaasi ka agdhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xildhibaano ah kana tirsan markaasi aqalka Congress-ka ee Mareykanka. Wasiir Bakaal waxa uu sheegay in dadaalada socda ay yihiin kuwo markaasi kama dambays ah, dhowaanna markaasi uu soo bixi doono war farxad leh oo reer Somaliland oo dhan markaasi farxad geliya. Waxa uu sheegay in dhinacna markaasi laga raadinayo aqoonsiga, dhinaca kalena markaasi dadaal loogu jiro amniga iyo nabadgelyada sidii loo adkeyn lahaa. Wuxuu yiri xukuumadan aan qaybta ka ahay Cabdiraxmaan Cirro uu hogaaminayo waxay dadaal ku bixinaysaa amniga iyo sidoo kale nabadgelyada, waxaana markaasi sidoo kale aan dadaal ku bixinaynaa sidii aan dunida markaasi uga dhaadhicin lahayn in la joogo waqtigii Somaliland markaasi loo aqoonsan lahaa dal jira oo madax bannaan oo dunida markaasi ay la macaamili karto. Waxaan doonaynaa in markaasi si nabdoon oo markaasi miyir qab ah aynu ku raadino aqoonsigeena, ma doonayna ayuu yiri wax markaasi dadkeena aanan dan ugu jirin inaan markaa aqoonsiga aan ku raadino. Horey Somaliland waxay markaasi dhul ugu bedelatay iyo badba in Ethiopia ay ka hesho aqoonsi, laakiin waxa uu meesha ka saaray in wax Somaliland dadka ku nool aan dan ugu jirin aysan aqoonsi ku bedelan doonin. Hadalkaas wuxuu meesha ka saarayaa heshiiskii MAU-ga ahaa ay la galeen markaasi Ethiopia xukuumaddii Muuse Biixi uu hogaaminayay, oo ay doonayso Ethiopia inay Somaliland aqoonsi siiso, kadibna markaasi dhul 50 kilomitir oo isku weer ah oo bad iyo beriba la Ethiopia lagu wareejiyo saldhig ay ka dhisato, dekedna ay markaasi ka dhisato. Dad badan ayaa arrinkaas waagi markaasi ka carooday oo si weyn markaasi uga soo horjeestay oo reer Somaliland xataa ay ku jiraan, waayo Somaliland dekedeeda inta ugu badan waxay ku tiirsan tahay Ethiopia in ay wax kala degto. Inkastoo Ethiopia dekedaha Djibouti ay badanaa wax kala degto, haddana dekeda Berbera waxa inta badan markaasi ay ku tiirsan tahay ganacsiga dhinaca Ethiopia, maadaama dal weyn oo bad aanan lahayn uu yahay. Haddii marka Ethiopia ay bad siiyaan oo Ethiopia ay deked dhisato, waxaa si automatically xirmaysa dekeda Berbera, waayo Soomaaliya inteeda kale waxay leeyihiin dekedo. Marka haddii tusaale oo kale Puntland oo kale wax loo soo dhoofin lahaa oo dekedaas ay wax kala soo degi lahayd dekeda Berbera, Puntland iyada 2 dekedood leh. Maamulka waqooyi bari oo hadda la dhisay, haddii markaasi uu ambaqaado dhismihiisa, waxa uu yeelan doonaa deked oo markaasi laas qoray ayuu deked ka dhisan doonaa. Marka dekeda Berbera waxay ku tiirsaneed inta badan ganacsiga Ethiopia. Haddii marka Ethiopia ay ku guuleysan lahayd hadafkeeda inay Somaliland bad ka hesho, dekedna ay ka dhisato, dekeda Berbera waxa inta badan markaasi xirmi lahaa ganacsigeeda, oo Djibouti-na deked ay leedahay, Eritrea deked ay leedahay, Ethiopia-na deked ay markaasi yeelatay. Marka waxa wax kala degaya dekeda Berbera waxay noqon lahaayeen gudaha Somaliland oo kaliya, taana kuma filno ganacsiga dekeda marka la fiiriyo. Marka hadda waxay u muuqataa in Somaliland ay dib ugu laabanayso go'aankaas oo aysan ku degdegi doonin, sidoo kalena markaasi ay ka fiirsan doonto in go'aankaasi ay la sii ambaqaado oo la hirgeliyo. Haddaba Somaliland waxa markaasi waqtigan u muuqataa inay ku jirto marxaladii ugu dambeysay ee helitaanka aqoonsigeeda. Sida u aragtaa, Somaliland ma la joogaa waqtigii markaasi la aqoonsan lahaa, ama waqtigii markaasi aqoonsiga rasmiga ay heli lahayd ma la soo gaaray? Aragtidaada qaybta commentiga ku dhiibo sidaad u aragto, haddii Somaliland markaasi la joogo waqtigii la aqoonsan lahaa ama ay soo gaartay waqtigii aqoonsiga uu siin lahaa dunida inteeda kale. Qaybta faallada ku dhiibo, calaamada subscribe-kana taawo channel-kan oo ku soo biir haddii aad ka mid ahayn saaxiibadii hore ugu xirnaa. Haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore ugu xirnaana, muuqaalkan like saar.